بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركوبة الله سبحانه وتعالى أيام هاد سكله عافيمات كنسي إنه تقني معين كي سفرها بضله. الحمد لله بالله نحي. نقصد هذا برنامج كني كوباد زدني علما أقوني كردي إن شاء الله تعالى، وحرجينا إنه إلهي نوافع واحد كلفة هذه سنة waxay soo jeedeen anigoo ah Samaal Cabdi Carab insha Allah taala. waxaanu barnaamijkeena maanta soo qaadan doonaa hadii Ilaahay qadaro aan ku furfuran doonaa aayah min al-Qur'an al-Karim, aayad kamid ah Qur'aanka Kariim fi suurat Ali Imran ku jirto. waxaanu ugu furfuraynaa Qur'aanku waxa weeye wax la furfurto waxa ugu khayr badan Qur'aan al-Karim insha Allah taala. waxaan rajaynaynaa in Qur'aanka aynu ku furfurno barnaamijkeena kadibna aynu waxyaabaha kale ee aqoonta diiniga iyo maadiga kale noo siidan kan hadii Ilaahay qadaro. waxaan ogsoonahay in badankeenu dadka Soomaaliyeed Quraanka ay garanayaan, waalid, dhalinyar, oday, cid walba ay Quraanka si fiican u garanayso, laakiin badanka waxa xagga laga liito waxa weeye waa macnaheeda Quraanka oo badankeenu naftayda iyo nafaadka kala iyo nafaad dhalinyarta dhammaan aanan la baran oo aad loogu liito. marka insha Allah taala aayadan baynu isla eegaynaa. waxaan ugu bilaabaynaa Qur'aan maxay ku furfurna barnaamijkeena insha Allah taala muhiim weey. aayadan waxay leedahay aayada 110 fi suurat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. intaan qodobka leeyahay insha Allah taala aayadka macnaheedu. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxaad tihiin ummadii ugu khayrka badneed la soo diray la soo saaray. خير أمة أخرجت للناس تأمرون محان كن قني خير أمة تيجو خير كبنديد وحان صفرنا بالمعروف وناجا وتنهون وحان سكا نهين لسان سكري بسان عن المنكر حماها وتؤمنون بالله الله سبحانه وتعالى وهو كسلسان. إذن عدين نحن أمة تيجو خير كبنديد إننا مكان دينا أي نفهمنوي بوسيشن كهرين نفهم. خير أمة إنه نحي إنه كلمة داس إيو إنك دعدا على الربا. خير أمة إنه نحي إنك دعدا على الربا. يعني القرآن كنا آخرنا وتطبنا كان حافظ كان حافظون بين ويانا كان علماء بين دار. لكن حلو بهني إنه أوجانا إننا خير أمة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إنه كلمة داس آيات داس قلبي إنك دعدا على الربا وإنه سيدا بقول قنو هذا خير أمة نقولي وحوي صوب سينكون نقولنا عتهي وناجا ليسفري وحمات ليسكريبي يلا نوحل رباع قلبك إن كرلوقا وضدك صومالي أن يرتا مشيد جودهان وناجا ليسفرو حمها ليسكريبي وحيكوننا يا مشيد أما ضدك محين لليرتا مركز لجوجي هذا قف يرح حديثي أم وحيار شيء كذا روح ولا ورشيخ يكون يا هذا شيخ بحنا يعني مشيد الصومالي أما لليرتا الصومالي ده أمسيهين diinta waxa fidiya waxa ka falanqeeya waxa kitaabiya xadiisi wanaagad ku sheegay yahay nin imaamad iyo sheekh maaha markuu waxa weeyii waxa diinta fidiya ama kor meel dheer gaarsiiyo dadka bulshada gaarsiiyo waa dadka umarada ee madaxda mar labaad waa culimada mar saddexaad waa guud ahaan bulshada waa u taala qof waliba inuu diinta fidiyo u taala maaha qof gaar kuma ah culimo gaar kuma ah umaro gaar kuma ah oo amiiryaal ayo maxay dad wax xukuma bulshadana way u taala inay tinta fidiyaan. idan waxaan u baahanahay in ayadaas qalbigeena ka dhacdo ummadii u khayrka badneed wanaaga nusfarayna kor u qaadno xumaanta ayna iska reebno aynu yadna kor u qaadno xumaanta way fara badan tahay marka xumaantu way ka dheeraysaa wanaag sida caadi iska garanayo. idan insha Allah taala aayada khaas inaynu fahanno ayaan rabnaa insha Allah taala naftiina baan ku boorinayaa. barnaamijkeena kooban waxaan ku dhigi doonaa mid kooban insha Allah taala. ayada waxa rajaynayaa in Allah subhanahu wa taala inagu anfaco inagana dhigo kuwi ku dhaqma jidka toosan Allah subhanahu wa taala inagu wada mari dhamaanteen inaha ayaan barnaamijkeena kusoo koobaynaa. waxay intaan ku faa'iideyn insha Allah taala aynu u sii gudbino dadka kale haddii Ilaahay qadaro. إنها ينقل من برنامج كينان كوبان إنتين كل بدون برنامج كينان لبعض بلا توفيق. السلام عليكم ورحمة الله.